بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا channelka YouTube-ka أصلح أبسافي. waxaan idin soo gudbinayaa qisadii Jacfar bin Abi Talib. waa qiso aad iyo aad u cajiib badan. inta aanan gudi gelin qisada, fadlan subscribe saar channelka si ay kugu soo gaaraan muuqaalada aan soo geliyo kambaneelka taawa si aad ugu noqoto qofka ugu horeeya oo daawada sheerada si aad ula wadaagto asxaabtaada. walaalahayga maanta waxaan idin soo gudbinayaa qisadii Jacfar bin Abi Talib oo ahaa Ali bin Abi Talib walaalkiisa. Jacfar waxaan ku geeriyooday dagaalkii Mowtah. Jacfar labada garab ayaa laga gooyay. Jacfar qisadiisa waa qiso aad iyo aad u macaan badan. markii oo Jacfar labada garab laga gooyay, nabiga sallallahu alayhi wasallam waa u duceeyay. nabigana riyo waxa isku arkay Jacfar oo jannada ku jiro oo labadii garab laga gooyay oo Ilaahay laba garab u yeelay. waxaa la sheegaa reer bani Cabdimunaaf waxa kamid ahaa 5 nin oo si aad ugu ekaa muuqaalka rasuulka sallallahu alayhi wasallam. 5taas nin waxay kala ahaayeen Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abd al-Muttalib oo ay nabiga sallallahu alayhi wasallam ilmo adeero ahaayeen, iyo Khutham bin Abbas oo isna ay nabiga sallallahu alayhi wasallam ilmo adeero ahaayeen, iyo Asaa'ib bin Ubayd bin Abd Yazid oo ahaa Imam Shafi'i awowgiis. Hasan bin Ali oo ay dhashay gabadhii rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee Faaduma, iyo Jacfar bin Abi Talib oo ay walaalo ahaayeen Ali bin Abi Talib. waxaa la sheegaa 5tan qof nabiga sallallahu alayhi wasallam inay aad ugu ekaayeen, waa isku ekaayeen. Jacfar ma ahayn ekaansho kaligiisa ma ahaynee hasab ahaatee Jacfar Allah ilaahay karaal noqdo wuxuu qaatay akhlaaqii iyo wanaagii oo nabiga sallallahu alayhi wasallam. Jacfar wuxuu guursaday gabar oo aad iyo aad u qiimo badneed. gabadhaasni waxaa la oran jiray Asmaa bintu Umays. Jacfar iyo xaaskiisa inay soo islaamaan waxaa sababteeda lahaa Abubakar Sidiiq Allah ka raali noqdee. markii oo ay islaameen Jacfar iyo xaaskiisa kadib waxay la soo gudboonaatay ciriiri iyo dhibaato weyn oo kaga yimid gaaladii Qurayshta. asxaabta waqtigaas waxay soo islaameen dad aad iyo aad u yar. asxaabta waxay isku imaan jireen daartii Arqam bin Arqam ayagoo asxaabtu aad u yar oo gurigii ama daartii Arqam bin Arqam oo ayagoo ay fadhiyaan. kadib waxaa imaaday Jacfar wuxuu sheegay inuu oo soo degay nabi Maxamed ku soo degay suuradii ida shamsu kuwirad wa ida nujumun kadarat. maalin maalmaha kamid ah asxaabta ayagoo ay fadhiyaan daartii Arqam bin Arqam waxaa imaaday Zayd. waxa uu dhahay nabiga sallallahu alayhi wasallam waa loo soo waxyooday ee diinta aan faafino. kadib Jacfar dariishada intuu furay wuxuu dhahay Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ayuu dhahay. kadib Jacfar iyo asxaabtiisa way soo baxeen ayagoo leeyihiin Allahu akbar Allahu akbar. waxay soo mareen dhanka oo Makka, xaafadaas dhan ayay soo marayeen ayagoo ay leeyihiin Allahu akbar Allahu akbar. gaaladii oo Qurayshtani ay dhagax meynayaan. run ahaantii Jacfar xagga islaamnimada qayb weyn ayaa ka soo qaatay oo halkan aan lagu soo koobi kareenin. rafaad dhib ayaa soo maray. Jacfar wuu xanaaqay wuxuu dhahay kacbadii alle miyaad naga reebaysaan haddaad waxna yeeshiin haka markhaati kacaan carabtoo dhan. Jacfar wuxuu ahaa dadka uma ciino masaakiinta. Jacfar masaakiinta dhan waa u ciini jiray, waxna waa siin jiray. markii muslimiinta oo dhibaato loo geysto Jacfar ayuu caawini jiray. nabiga sallallahu alayhi wasallam muslimiinta wuxuu amray inay ka hijroodaan Makka oo ay aadaan dhulka Xabashiga. waxaana madax ugu dhigay Jacfar. Makka way ka tageen, waxay u hijroodeen dhulkii oo Xabashiga, waxayna halkaas u aadeen amaano inay ku helaan. hase ahaatee gaaladii Quraysh markii ay maqleen in koox ka mid ah muslimiinta ay u qaxeen Xabasha, sidoo kalena ay magangelyo ka helaan boqorkii Xabasha, ayaa waxay isku dayeen sidii ay muslimiinta ugu soo celin lahaayeen magaalooyinkooda, dabadeedna ay u dili lahaayeen ama ay xabsi ugu taxaabi lahaayeen. madaxda Quraysh waxay go'aan gaartay boqorkii Najaashi inay u diraan 2 nin oo xoog badan. labadaas nin waxay kala ahaayeen Amr bin Al-Aas iyo Abdullahi bin Rabi'a. labadaas nin waxaa loo diray dadkan asxaabta oo ay aadeen Xabashiga in dib loo soo noqo oo la xiro ama se la dilo, inay wixii ay dhahaan asxaabta labadan qof inay beeniyaan. kadib markii ay aadeen dhulka Xabashiga, labadan oo gaalada oo Qurayshta ay ahaayeen waxay u geeyeen boqorka dahab aad iyo aad u badan iyo lacagyo. kadib Amr bin Aas 10 been ayuu akhriyay boqorkii Najaashi. wuxuu dhahay dadkan waa dad oo khaa'imiin ah oo anaga soo fakadeen. kadib Najaashi wuxuu dhahay dadkan hal xiro. kadib Jacfar wuxuu dhahay u kaadi boqorow, adiga waxaa tahay dad oo qof oo aad iyo aad u fiican oo dadka nabadgelisid, anaga xaggiina waxaan u imaanay inaad nabadgelisaan. kadib wuxuu dhahay sababta aad ugu soo cararteen maxaa waaye wadankiina. wuxuu dhahay anaga Makka waxaan ugu soo cararnay diin cusub ayaan la imaaday nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam, diin oo jiro waaye oo Ilaahay soo diray rasul waaye. kadib Jacfar wuxuu dhahay weydii dadkan مريم عيسى ابن مريم يعني بين أي كو أبورنايان. كدب جعفر وحو أخريي آياته أو
ciise bnu maryam oo qur'aanka kariimka oo raxmada badnaa. jacfarna wuxuu ahaa nin oo waranti ah, nin oo akhlaaq fiican oo dadka si fiican ula dhaqmaayo. kadib najaashi wuxuu akhriyey suurat almaryam. najaashi kadib wuu ooyey, wuxuu dhahay wale maxamed diin oo cusub la yimid ma lehe, diintaani iyo diintii maxamed waa isku mid. dadkaani maganteeni ammaantaani ayay ku jiraan ee faraha ha laga qaado. adigana camr bin caasow halkan igaga tag ayaa loo dhahay. sidii ayaa loo soo boorayey nebiga asxaabtiisa. ilaahay guul ayaa siiyey. jacfar si fiican ayaa u hadlay, xagga islaamnimadana si fiican ayaa ugu sharxay. jacfar wuxuu dhahay anaga waxaan ahayn dad oo yacni zinaysta, dad oo waxada, dadkii oo nagu awood yar waan dili jirnay, waxaan ahayn dad jaahiliyo. laakiin hadda nebi ayaa ilaahay noo soo diray, wax kasta oo xaq ah nebi moxamed ayaa noo soo sheegay. kadib wuu ooyey xabashiga uu ahaa boqorkii xabashiga najaashi. sidaas ayaa ku nabadgaleen dadkii oo xabashiga ay ku noolaayeen. jacfar iyo dadkii ay israaceen oo xabashiga ay aadeen waxay ku noolaayeen 10 sannadood. kadib 10 sannadood kadib waxay u soo noqdeen maka. markii maka ay u soo noqdeen oo jacfar uu arkay nebiga sala allahu calay wasalam, laabtiisa ayuu geliyey. nebiga jacfar laabta ayaa la geliyey. nebiga sala allahu calay wasalam waa ooyey, maxaa yeelay jacfar aad iyo aad ayuu u jeclaa. jacfar wuxuu ahaa nin oo aad iyo aad u akhlaaq fiican, ooni aad iyo aad dadka u soo dhaweeyo, ooni dadka fakiiriinta ama miskiinta oo caawiya. jacfar waxaa ka mid ahaa dadka oo faafiya diinta ayaa faafi jiray jacfar bin abi taalib. jacfar waxaa ka qayb galay dagaalkii mu'tah. joogista jacfar ee dunida saarnaa ayaa soo yaraatay. sanadkii 8 hijriga bilowdii wuxuu rasuulka sala allahu calay wasalam diyaariyey ciidan la dagaalama ciidamada ruum ee ku sugnaa gobolka shaam. hogaamiyihii ciidamada muslimiinta zayd bin xaaris markaas waa naf waayey, waa la dilay, waa shahiiday. markii oo zayd oo dhintay kadib waxaa si xamaasad leh oo faraskiisa oo ka soo degay jacfar bin abi taalib. isagoo ka soo degay faraskiisa si xamaasad weyn ku jirta ayuu dagaalkii u galay. waxaa keliya u muuqanayay waxay ahayd janno oo bilicdeeda oo balaaran iyo biyaheeda oo macaan, xurul ceen oo qurux badan, webiyaal kala nooc. intaasoo dhan ayaa u jeeday jacfar markii oo faraskiisa iska soo degay. wax kaleba ma arkaynin ee waxa u muuqday jannadii iyo nicmooyinkii oo jannada dhex yaalay. wacdara weyn ayuu jacfar goobtii dagaalka ku muujiyey, asagoo watay seeftii. wuxuu dhex maray ciidankii oo romaanka, kii ka soo horbaxaba qoorta ayuu u dheereenayay. kadib jacfar waxaa laga dhaawacay gacantiisa midig, calankii ayuu misna ku qaaday gacantiisa bidix. marka kale ayaa misna laga dhaawacay oo ay go'day gacantii bidix. kadib laabtiisa ayuu damacay inuu calanka ku qaado, hase ahaatee dhufashadii saddexaad oo darneed ayaa jirkiisa laba dhinac ka kala dhigtay. intaa kadib waxaa calankii wareegay geesigii saddexaad ee cabdullaahi bin rabaax, ilaa isna laga dilo oo ku shahiido. dhammaantooda allah u naxariistee, allahna karaala noqdee, waxay dhinteen iyagoo u taagan difaacii diinta alle. marka jacfar sidaas ayaa ku dhintay, labadiisa gacmood ayaa la gooyey. jacfar wuxuu u duceeyey rasuulkii alle oo dhahayo ilaahayow waxaad jacfar qooskan ugu beddeshaa wax khayr badan. ilaahayow qooska jacfar bedel wanaagsan sii. kadib nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi waxaan jannada ku arkay jacfar oo leh 2 garbood oo dhiig leh. jacfar 2 garbood waa laga gooyey markii oo dagaalka oo ku shahiiday. kadib nebiga rii ayuu ku arkay jacfar oo jannada ku jiro oo 2 garab qabo. maasha allah, subxaana allah. walaalahayga qisadii jacfar halkaas ayaa noogu dhammaaday. filimkani waxaa idiin soo turjumay walaalkiina aslax abasaafi, waxaana ku soo turjumay stuudio saafi oo ku yaala dalka talyaaniga, gaar ahaan magaalada baadaba. walaalahayga filimadan sheer gareeya, ha idin naqdee sadaqal jaariya. khayrta ka faa'iidaysta walaalahayga, khayrta u soo degdega. wixii khayr leh dhan ee faafiya, wixii khayr aan lahayn iskaga dheeraada. khayrta faafiya walaalahayga. sidaas iyo nabad geliyo.
هاي لو منا لايك شير